السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جوا معلم إنجنير خضر حسن. هذه بندين سلامية. أرتدي جلس عطها وحوي يوتيوب كا. عشرة دي أيجا صورت أرتدو 10 كويتونات كني. كما حين نقول كدونا مركز الدعاء هي لو دلوليو. مركور الله وسعره. ولكن كي الناس قفك إلى صور بلعبي ولي إلى صور أنكرا. دعاء هي بالمكان كسارية. marka daaqada iyo labada daaqadood dabaan ka saaraya inta kale idinka soo diyaarin doona hadii la hay'admo marka doonaysina daaqadii meeshan ka banayso marka hore waxa la doonayaa inaad hesho midpoint wax la yiraahdo qolka bartankiisa oo daaqada halka geerashu ugu kala baxayso line-kaaga ku soo dhufo line-ka madow dul socod xagga gudaha marka uu halka ku sheego gudaha waa midpoint-ga line ku xidho inta kaliya uga baahanahay ee fahantaa filaya okay halkan tan line-ka halka ku jiido ayaan ka afka u saaray waxba soo dhaadhiciisa danka malihi halka tusaale ma laga soo qaatay line-ka igu toosnaado markaan halkaas sameeyay line-kii bartankaan helay marka qolkayga kii u bartaminay laakiin xaggan haddaan ilaada ka qaado imika for example halkaas waa imisa 2 mitir halkaas barkaa imisa 4 mitir iyo 10 cm dheeriya igu jira marka 10 kaasi waa inta aan diidanaaba in midpoint-iga soo qaataan ugu talagal waa gulacda yar 10 cm baa ku jira marka inagu qolka bartankiisa rabnaa qolka bartankiisuna waa line-ka halka aan dhigan halka marka dhigato halka hoose oo halka gurigaaga bilaabmayay guriga dalacaadiisa ama foundation-ka ama seeska wixii ka sareeya ayaad qaadaysaa later-ka aad gaarsiinaysaa 2 mitir iyo 10 cm 2 mitir iyo 0.1 2.1 waka halkaas marka dib uga soo laabanaysa 1 mitir iyada hoos uga soo noqonaysa way 1 mitir markaan hoos uga soo noqono waxaynu haysanaa bartanka daaqadeena marka maadaama ay tii hoolka tahay waxaanu ka dhiganaa mitir iyo 20 marka mitir iyo 20kii dhinacan waxaynu u baxaynaa 0.6 oo 60 cm ah xaggan waxaynu u baxaynaa 60 cm kale 0.6 halka maxaynu ugu haysanaa 0.6 iyo 0.6 waxaan ugu haysanaa mitir iyo 20 cm ugu haysanaa waxaan soo qaadanaa marka rectangle-kii deetana line-kan iyo xidhanna ka dhaxe danka milyan dhammaantaas ku xidho marka inta isku xidho waxba uma baahnid laymashan faraha badan ee meesha yaalla iska tirgidigooda inta halka tagto dhammaantood waxa tiraada iga saar markuu baxo marka wali waa line-kii waxaan doonayaa meesha inaan dulino daaqadii ka furno waxaan soo qaadanaa bush or bull waad ku dhufan deetana sidaas u socon marka dhibcica ku soo dhigaad xagga u baxdo ee waxaad qori intii uu ahaa foundation size-kaagu ama uu ahaa gidaarkaaga kor u kaca marka xagga wajahada waynaga dhagax ka dhignay 40 cm waa 0.4 baad ka saaraysaa marka good waka si fiican ila arko ayaan doonayaa insha Allah waka waxa kale haddaan ka soo marno u daaqadii way banaantahay line-kaas waxaynu u samaysanay inuu midpoint-ii noo noqdo bas kaliya wax kale oo dan wala nahay ma jirto halka waxay noo yaala views-ki inaan top-ka arki karno inaan front-ka arki karno marka front-ga hadda u sameynay daaqada marka back-aan doonayaa hadda kana waa maxay right-kii waa midigtii waa left-kii waa ka back-aan istaagay back-aan laba daaqadood baynu ka rabnaa back-aan laba daaqadood ayaynu ka rabnaa waa laba qol ay leeyahay marka labada qol mid walba goonidiisa u raadinaya bartanka ama midpoint-giisa halkaas aan ku dhufanayaa deetana gudaha aan ka raadinayaa midpoint waan helay waka halkaas aan xidhay kan kalena waan ka raadinayaa xagga gudaha isagana waan qabtay waan xidhay waxaan soo qaadanayaa line gidaarkan aan line ka qaadanayaa line-ka waxaan uga dalayaa kaas inaan ku taago kana waan ka sii qaadan karaa isagana oo kaas aan ku dhigan halka hoose waxaan ka soo qaadanayaa 2 mitir iyo 10 cm oo al literka waka waxaan dib u noqonayaa ama hoos aan noqonayaa 1 mitir okay 1 mitir kuma sina gidaarku sina markaas aan jooji saan mitirka si fiican u aragto okay waka 1 mitir baan dib u noqonayaa marka hadda labada gidaarba waa isla wadaagi karaa marka iyaga mitir uma ka dhiganaa daaqadaha xagga waxaynu u baxaynaa 0.5 xagga waxaynu u baxaynaa 0.5 waka halkii mitir rectangle-kii baynu ku xidhanaa
inta aanad guideline-kii iska tirin kana hareeraha u bax 0.5 iyo 0.5 waxaad sameyn markaa waay soo qaado tab measurementgaagii 0.5 xagga u bax waxaan kaloo maxay u bax 0.5 okay tangalkii soo qaado deetana ku xidh okay intay la fahantay ayaan filayaa insha Allah waayahay dhammaan waxaan iska tirayaa guideline-kii labada meelood waxaan rabaa inaan dalooliyo daaqadii ka baneeyo push or pull ku dhufo in yahay gudaha u dhaqa kana 0.4 maaha marka waa 0.2 waa 20 centi okay waa ka furay kana sidoo kale xaggan ha u soo soconin gudaha u soco markaad gudaha waxoogaa u dhaqaaqdo 0.2 cabirkii gidaarkaaga waxaan baad u sheegaysaa tan hadda ku tuso labada daaqadood waa kuwa gudihii waa laga arkayaa soo ma good laymasha sare maxay ujeedkoodu inaan cabirka daaqada qolka inaan u bartamiyaan ka helo wey iskaliya waa inta okay way kuwan kale sida u sameynaysaa markaa sida aan kuwa u sameyno for example daaqada suuliga taas adaga taan isku dayo way daaqada suuliga imika tan oo kale suuligan oo kale xagga ugu sameynaa deeto waxaan raadinayaa midpointigiisi sida marka hore aan sameeynay okay kadib meelahan baan meel ka soo qaadanay line taagan si aan u helo kaasaan soo qaato deetana kaasaan ku xidhay iyada daaqadu waa 0.5 marka halkan waxaad u baxaysaa 25 0.25 okay xagga kalena waxaad u baxaysaa 0.25 good frontiga istaag si aad laymasha u aragto waa kuwa laymasha saxda ah halkan ka soo qaada marka isaga waxaad ka soo qaadanaysaa 2 mitir iyo 10 senti oo liitarka waa liitarka ma dhaafi karo liitarka markaad samaysay markaa waxaad dib u soo noqonaysaa 0.5 senti daaqadaha kale ka yar tahay okay midpointigina waad heshay 10 senti markaa waa isku xidho 10 senti ilaa halkan okay deeto guideline-ka dhammaantood iska tir kadib maxaad sameyn push or pull ka saar xagga u soco 0.2 marka okay kaasna sidaasu ku dhan yahay isagana line-kii yaraa sare waxba kuma taraye iska baabi'i okay haddaba cashirka ku xigay insha Allah waxaan isla arki doonaa daaqadihii aluminumkii si aan u gelin lahayn haddii Ilaahay yiraahdo marka intaynaan kaa gaadhin waxaan kaa rabaa arday walba insha Allah inaad isku soo daydo daaqada suuliga oo halka ay ugu sameyn doonto xaggan jabay naga xigta halka ay ugu sameyn doonto kitchenka oo halka ugu sameyn doonto iyo hoolka halka ugu sameyn doonto intay naga maqo waa intaas halkaas markaa laga taliya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.